bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhameynay website-keeni ama blog-geeni hadda waxaan doonaynaa inaynu live ka dhigno oo aan saarno server-ka maadaama uu yahay static HTML oo uusan database ku xirnayn ama back-end lahayn oo meesha wax laga soo gelinayo sida WordPress oo kale laakiin waxaan idin bari doonaa sidee u saari kartaa live-ka marka su'aalahan oo kale ayaa ardaydu soo weydiiyaan ugu horreyn waxaad u baahan tahay waxa la dhaho domain name kaasi waa magaca salaam magacaaga oo kale aad tiftaxdu yahay ama cali website-ka waa inuu lahada magac aniga website-kan hadda aanu wax ku soo tabino waxa la dhahaa somcoders.com bbc.com waa domain kadibna waxaad u baahan tahay hosting meel faylashaada iyo database-kaaga ay ku haynaysaa inta badan website hosting jira oo bixiya hosting-ka kuwa Soomaalidu leedahay iyo kuwa oo caalamiyaba kadibna waxa ay ku siinayaan cPanel ama control panel-ka waa meel aad ka dhex abuuri kartid database-kaaga faylashaada ku soo upload gareyn kartid sida YouTube iyo Facebook wax u gelisid waxaana ka dhex abuuran kartaa FTP oo ah meel aad wax ka soo gelin kartid oo dambe ka bacdina aad ku soo shubi kartid faylashaada bal FTP-ga aan isticmaal doono aniga waxa weeye FileZilla halkan waxaan ka geliyaa server-kayga tusaale somcoders ftp@somcoders.com username-kayga password-kayga ayaan gelinayaa markaan geliyo waa geliyay waxaan samaynayaa faylasha ayuu hadda raadinayaa markuu raadiyo waxaan somcoders ayaan ka dhex raadinayaa oo folder-kayga website-ka ku yaalay ah ka bacdina waxaan abuurayaa wax la dhaho directory cusub oo ah blog markaan blog abuuro blog ayaan dhex tegayaa hadda waxa madax yaaliyo marka halkan waa qaybta computer-kayga halkan waa server-ki soo computer-kayga waxaan tegayaa qaybta oo desktop-ka markaan tagana waxaan tegayaa blog faylashana intaan highlight ku saaran ugu soo jiidayaa halkan ayaan keenayaa soo page-ku marka ugu horeysa soo kaco wuxuu ku soo kacayaa wax la dhaho index file-ka soo haddaan website-ka booqdo oo aan galo somcoders.com/web oo midaan jirin waxaa soo qorayaa error la dhaho 404 oo in page-kan jirin ama wuxuu ku jirin laakiin haddaan galo blog wuu jiraa laakiin website-ka ma geli kartid oo waxaa ka maqan index file-ki soo wuxuu u baahan yahay file la dhaho index.php ama index.html saas oo kale maadaama file-kan bogga hore waxaanu ka dhiganaynaa index.html haddii kalena toos aynu geli karnaa halka waxaan ka geli karnaa bogga hore .html haddaynu dhahno caadi aynu geli karnaa yes wuu shaqaynayaa haddaynu doorno single inaynu tagnana oo kale single page waynu joognaa laakiin markuu page-kanu /blog soo kaco waxaan rabnaa qofku inuu daqiiqadiiba page-ka hore tago markaa kan ayaan waxaan u bixinaa right click index.html ama .php hadba luqadda isticmaalaysid soo haddaan refresh gareeyo yes index.html waa ka shaqaynayaa haddaynu single post galana single post ayaynu gelinaa marka already website-ka hadda uu saaran yahay haddii aad doonaysid inaad tijaabiso waxaad soo geli kartaa somcoders.com/blog aad iyo mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq